kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogta Shiine ee aan ku soo gudbino warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenana waxaan ku soo gudbin doonaa daraasad shaaca ka qaadaya Turkiga 2022 wuxuu ka awood badnaanayaa Shiinaha iyo xataa midda Ruushka. waa faal xiisa badan oo ka hadlaysa isbedelada la yaab kale ee Turkigu uu ku sameeyay 3 sanadood wax ka yar. oo ka dhashay Mareykanka iyo dalka Canada oo Soomaalida ka saaray liiska dadka madow kuna daray dadka cadaanka ah ee ku jiraan dalalka Carbeed. Iran oo wacad ku martay inay dili doonto Donald Trump mar haddii xilka uu ka tagay, iyo muran ka taagan cidda sugaysa doorashooyinka dalka Soomaaliya. ergada wax dooran lahayd baarlamaanka oo walaac ka muujiyay koonfurta Soomaaliya inay dili doonaan dagaalamayaasha Soomaaliya. midowga Yurub wuxuu ka dhawaajiyay xiisaha istaraatiijiyadeed ee hagaajinta xiriirka Turkiga iyo xogo kale oo muhiim ah ayaanu idinku soo gudbin doonaa xogeenan dunida. warbixinadeenan waxa uu muran ka taagan yahay cidda sugaysa arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ka dhacayaan, gaar ahaan 3 dowlad goboleed ee dowladda la safan oo intooda badan dagaalamayaasha laga cabsi qabo. dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow ugu jirta arrimaha la xiriira sugidda amniga doorashooyinka ee la filayo in dalka ay ka dhacaan, inkasta oo weli aan heshiis laga gaadhin hanaanka doorashada. si loo adkeeyo ammaanka doorashooyinka ayaa dowladdu samaysay guddi loo magacaabay guddiga amniga doorashooyinka heer qaran 2022. afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiq Aadan Cali ayaa warbaahinta u sheegay inaysan jirin xarun doorasho oo si gaar ah ciidamada dowladda federaalku amnigeeda u sugayaan. hase ahaatee wuxuu xusay inay jiri doonaan guddiyo amni oo isku dhafa oo ka wada shaqayn doona amniga magaalooyinka la filayo in doorashadu ka dhacaan. ma jirto xarun doorasho oo si gooni ah booliiska federaalku u maamulayo, maadaama guddiga amniga doorashooyinka yahay hay'ad la wadaago oo ay wadaagaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sadiq Aadan Cali ayaa sheegay in muhiimad ay tahay sugidda iyo xaqiijinta amniga doorashooyinka si taas loo gaadho. waxa uu tilmaamay in xoog la saari doono qorshayaal haddaba uu sheegay in bilow ay yihiin kuwaas oo la xidhiidha amniga doorashooyinka ee loo madlan yahay. hase ahaatee aan weli la isku waafaqin, inkasta oo aan weli lagu heshin hanaanka doorashada ee dowladda federaalka, haddana ciidamadu waxay hawshooda ku eg tahay sugidda amniga dalka iyo deegaanada doorashadu ka dhacayo oo ay weheliso dowlad goboleedyada. horey madaxda Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen in mar kale dalka ay ka dhacdo doorasho dadban, taasi oo ka dhigan in ergooyinka la soo xulay ay dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanku. halkii kursiba musharaxiinta ku tartamaya waxaa u codayn doona 101 qof oo erga ah, waxayna ka dhigan tahay in tirada guud ee codaynaysa ergada wax dooranaysa baarlamaanka ay gaali doonaan guud ahaan dalka 27,775 ergo. doorashadii dhacday sanadkii 2016 waxaa kursigiiba loo qoondeeyay inay u codeeyaan 51 ergo, waxayna tirada guud ay gaadhisay guud ahaan dalka 14,025 qof. tobannaan ka mid ah ergooyinka u codeeyay doorashadii 2016 magaalooyinka kala duwan 4 sano ee la soo dhaafay, kuwo badan oo ka mid ahna waddanka ay ka carareen, halka ay boqolaal kale markii dambe cafis weydiisteen dagaalamayaasha Soomaaliya si ay u nabad galaan. 2019 kooxaha dagaalamayaashu waxay dhowr goobood oo kala duwan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku soo bandhigeen boqolaal qof oo ay ku sheegteen inay ka tirsan yihiin ergooyinkii iyo nabadoonadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya 2016. dad badan ayaa isweydiinaya cidda damaanad qaadaysa amniga ergooyinka iyo nabadoonada soo xuli doona doorashada ee la filayo inay dhacdo sanadkani. nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ayaa rumaysan in la dayacay amniga ergooyinka wax doortay sanadkii 2016. Xaad wuxuu sheegay horta Ilaahay ayaa qadaro dhimashada iyo nolosha labadaba, marka laga reebo wax dadaala oo aanaysan dowladdu samayn u diyaar garowga in la difaaco ergadaas. markiiba waxay la kulmeen weeraro iyo cabsi gelin xoog leh ergadii wax dooratay 2016. balse booliiska Soomaaliyeed ee u xilsaaran amniga guud ee doorashooyinka ayaa ku adkeysanaya in ay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan amniga cid kasta oo ku lug yeelata doorashooyinka soo socda.
khubarada amniga ayaa rumaysan in casharo muhiima laga bartay wixii qabsaday ergooyinkii 2016. hay-adaha amniga ayaa aaminsan in qaladaadkii dhacay waxa laga bartay islamarkaana qorshayaasha loo dejiyo lagu saleeyay wixii hore ay uga barteen. arrimaheena kale ee isla Soomaalidana mas'uuliyiinta hay'adda u adeegta bulshada ee ka dhisan magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa sheegay inay ka fajiceen go'aan ay soo saartay dowladda dalka Canada oo ay ku diidayso dhaqaale loogu talagalay dadka madowga ah markii ay ku tilmaantay in Soomaalidu aysan ahayn madow sax ah sida lagu shaaciyay telefishinka CBC. arrinta aad iyo aad ayaan uga naxnay ayuu yidhi maxamuud xaaji aadan oo ka mid ah aas-aasayaasha hay'adda Soomaaliyeed ee caawisa dhaqaalaha loo diido dadka go'aanadani ay ka soo baxeen ama waxay ka soo jeedaan dunida kale ama kama tirsana bulshada madowga ayuu sheegay. agaasimaha hay'adda Soomaaliyeed ee caawisa dadka Soomaaliyeed Cabdirasaaq Karood oo bartamihii sanadkii hore codsiga dhaqaalaha u gudbiyey xafiiska dowladda ee bixiya qarashka lagu horumarinayo bulshooyinka madowga ee dalka ayaa sheegay in marnaba aamini waayeen jawaabta diidmada ah ee lagu soo celiyey. wasiirka arrimaha qoyska iyo carruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada Axmed Xuseen ayaa sheegay in warqadda hay'adda Soomaalida loogu diiday dhaqaalaha qodobka loo sababeeyay uu yahay mid aan la aqbali karin. warqaddii dhawaan loo diray waaxdayada ee la gaarsiiyey hay'adda ku guuldareysatay codsigeeda dhaqaalaha raadinta waxay ahayd mid gebi ahaanba la aqbali karin ayuu sheegay qoraal uu ku qoray barta Twitter-ka isagoo intaa ku daray isla markii warqaddaasi la tusay si degdeg ah inuu u dalbaday in laga noqdo go'aankaasi. waxaana la kulmay saraakiisha si aan ugala hadlo. bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd hadalhayn ballaaran oo ka dhalatay daraasaad Soomaalida lagu daray bulshada caddaanka ah. warbixin ay soo saartay jaamacadda California ee dalka Mareykanka oo ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ugu waaweyn caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ku daray liiska jinsiyada caddaanka ah. jaamacadda California iyo dhammaan xarumaha waxbarashada ee ka qayb qaata barnaamijyada samafalka ee ardayda ayaa codsaday in la soo gudbiyo xog ku saabsan faraca jinsiyadeed ee ardayga dhigata waxbarashada ka sareysa dugsiyada sare. hase yeeshee xogta la qeexay waxa ay ka duwan tahay midda taariikheed ee ay hayso jaamacadda California sababo la xidhiidha isbedelada lagu sameeyey 2010 ayaa lagu yidhi qoraalka. cilmi baarista waxaa lagu sheegay in loo eegay lafta ku jirta madaxa dadka taas oo dib loogu tixraacayo ilaa qarniyo hore. 5 qaybood ayaa loo kala dhigay liiska asal ahaan jinsiyadaha sida ku cad warbixinta jaamacadda. liiska caddaanka waxaa sidoo kale ku jira dalal ay ka mid yihiin Djibouti, Suudaan, Masar iyo dalal kale oo Carbeed. warbixinadana kale ee dunidana qiimeyn dhinacyo kala duwan ayaa la sameeyey Turkiga awoodiisa 2020 siday ku soo baxday iyo in sanadkan bilowga uu la bajibaarayo awoodiisa. 2019 Turkiga awoodiisu wuxuu ku jiray kaalinta 12aad ee awoodaha dunida. hal sano gudahood wuxuu u booday kaalinta 10aad ee awoodaha dunida siday qiimisay jaridda Global Firepower ee ka faaloota arrimaha militariga dunida. sidoo kale Turkiga waxa uu ka boodbood badan yahay awoodiisa militariga Shiinaha iyo xataa Ruushka isagoo istaraatiijiyadda awoodda go'aamiyey 2023 balse ilaa hadda guulaha Turkiga ee 2020 waa in yar oo ka mid ah guulahaas. Turkiga ayaa 5 sano ka hor waxa uu ku tiirsanaa qalabka reer galbeedka. maanta Turkigu waxa uu daboolay 70% oo uu ku guuleystay inuu daboolo baahiyaha difaaciisa ciidanka oo ay sii dheer tahay inuu ka mid noqdo awoodaha hubka u dhoofiya dunida. 2 sano ka hor Turkigu ma lahayn awood dabadeed laga soo bilaabo 2017 waa bilowgii siyaasaddiisa dibadda. kaliya 3 sanadood gudahood waxa uu saldhig ku leeyahay Soomaaliya, Qatar, Liibiya, Azerbaijan, Suuriya. dhammaan awoodahaasi intooda badan waxa uu ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay ee 2020. Turkiga ayaa lagu qiimeeyey inuu yahay dalka kaliya oo maalin kasta qalabkiisa militariga ee gudaha lagu farsameeyey gaarsiiya ciidankiisa in ka badan Ruushka iyo Shiinaha. Turkigu waxa uu walaac ka abuuray bariga dhexe in ka badan xataa awoodahaasi Shiinaha iyo Ruushka. warbixin daraasaad oo lagu daabacay warbaahinta Ruushka ayaa ciwaan looga dhigay Ruushku yuu ka cabsanayaa Turkiga kadib 3 dagaal oo uu guul ka gaadhay Turkigu 2020.
qoraa reer ruushka ah ayaa dhowaan sheegay geesinimada taas oo ruushka uu raadinayay xal diblomaasiyadeed ee ku saabsan wareegyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey Azerbaijan iyo Armenia maxaa yeelay waxa uu aqoonsaday in military ahaan uu daciif yahay marka loo eego Turkiga qiimeyntiisa. Alexander Shalanan oo tixraacaya 3 isku dhac oo waaweyn sanadkii 2020 kaas oo Turkiga iyo Ruushku ay ku ciyaareen dorar dhinacyo kala duwan oo iska soo horjeedaan iyadoo kooxaha Turkiga markasta ay adkaaneysay falanqaynta ay daabacday wakaalada wararka Ruushka ee Rosbalta. iska horamaadyada ee ciidamada Ruushka iyo kuwa Turkiga ay kala taageerayeen dawladda Syria ee gobolka Idlib ayaa ahaa guusha ugu weyn. dawladda Turkiga oo taageerta dawladda heshiiska qaran ee dalka Liibiya ee GNA ee ka soo horjeeday ciidamada kooxda LNA in Khalifa Haftar uu ku guuldareysto damaciisi. ugu dambeyntiina dagaalkii u dhexeeyay Azerbaijan oo ay taageerisay Turkiga goon ugoosadka ay kaga soo horjeedeen Armenia ee uu taageerayay Ruushka ayaa guul laga gaadhay. warbixinta ayaa sheegtay sababta dhabta ah ee Ruushku u xakameynayo in xal laga gaadho Nagorno-Karabakh waxay ahayd daciifnimadiisa military ee Ruushka ka muuqata. Shalanan qoraaga ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Putin wuxuu ka baqay awoodda military ee Turkiga. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan dabeecadiisa ee ku saabsan adeegsiga awoodda Moscow waxay la kulantay 3 guuldaro sanad gudihiisa. Shalanan ayaa sheegay guuldarrada tan iyo markii joogitaanka military Ruushka ay aad uga badan tahay tan Liibiya halkaas oo inta badan ay ku tiirsan tahay qandaraaslayaasha militariga Armenia. dagaalka Karabakh Shalanan ayaa yidhi isagoo tixraacaya isbahaysiga militariga oo ay leeyihiin dawladihii Sofiyeed kadib natiijo ahaan Yerevan waxa uu jab kala kulmay ciidamada Azerbaijan oo ay taageerayaan 700 oo ciidan xoog leh oo ka tirsan Jamhuuriyadda Turkiga ee casriga ah. diyaaradaha droniska ee lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga shakil aan waxay ku guuleysteen Ankara guulo badan oo ka dhana goobaha dagaalka inta lagu guda jiray 2020. si kasta ha noqotee taas macnaheedu maahan in Moscow ay soo gabagabaysay in daciif ay tahay wajiga militariga ee ay kaga hortagayso dalka Turkiga. falanqeeyaasha Blue Mailon oo ah koox cilmi baadhis oo madax bannaan oo fadhigoodu yahay Ankara ayaa rumaysan in Shalan uu sheegay qoraaga qodobkani qodob muhiim ah. falanqayntiisa militariga Turkiga wuxuu si toos ah ugu lug yeelan karaa aagaga iska horamaadyada isagoo adeegsan kara xooggiisa militariga halka Ruushku uusan awoodin sabab la xiriira cadaadiska caalamiga ee saaran. Blue Mailon ayaa u sheegay jaridda Ahval sidaa darteed waxaan u kuurgali karnaa ciidanka Turkiga ee sida tooska ah ugu lug lahaa qalabkooda militariga iyo howlwadeennada khibradda leh ee dagaalka ka dhacay Tripoli, Idlib iyo Nagorno-Karabakh. kooxda ayaa tiray dhinaca kale Ruushka ayaa daawaday markii xulufadiisa ay si aad ah isugu dayeen inay iska caabiyaan dagaalka Turkiga iyaga oo leh xulufada Ruushku qalab military oo aad u duqoobay midowga Sofiyeed. tan macnaheedu maahan in Ruushku uu isu arko inuu yahay mid military ahaan farsamo ahaan daciif ah marka la barbar dhigo Turkiga. falanqeeyaasha cilmi baarista ee Stratfor oo barnaamij sirdoonka ee juqraafi ahaan oo hoos yimaada shirkadda RAN ayaa u sheegay Ahval dagaaladii ugu dambeeyay Ruushku wuxuu muujiyay isu dheelitirnaan la'aan. intaas waxaa sii dheer iyada oo la tixgelinayo ciidamada isku dhafka ah ee Ruushka ee gobolka howlgalka difaaca. Moscow waxay ciidamadeeda gelin doontaa gacmo aan si wanaagsan u tababarnayn. nidaamyada gaarka ah ee Ruushku waxay ahaayeen inta badan qaab duug ah oo ka soo hadhay midowgii Sofiyeed marka laga tago tiro yar oo ka mid ah oo dib loo casriyeeyay. inkasta oo hubka difaaca ee dalka Ruushku uu yaalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ee loo yaqaan Bayraktar TB2 ee leedahay Turkiga ayaa ku guuleystay inay burburiyaan in ka badan 10 ee nidaamka bantisarka ee Ruushku uu ka dhisay dalka Liibiya. inkasta oo Armenia lumisay kantaalada ridada dheer ee difaaca cirka ee S-300 ee dagaalka Nagorno-Karabakh sanadkii hore, burburintoodu inta badan haddaanay gabi ahaanba ahayn waxaa sababay Azerbaijan oo dhistay diyaaradaha dagaalka ee Horb ee dalka Israa'iil iyo sidoo kale
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Turkiga. Intaa waxaa sii dheer, kooxda Blue Melon ayaa xustay in nidaamyada noocan oo kala ah Ruushka ee duugoobay ay ku abuureen Ruushka walwal xoog leh oo ah guuldarrada ay kala kulmeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Turkiga iyo sidoo kale sida ay ugu nugul yihiin nidaamyada difaaca ee NATO oo dagaal xoog leh ay mustaqbalka la geli karto Ruushku. Nidaamyada dagaalka elektarooniga ee Turkiga sida Coral oo ay weeliyaan ka hortagga dagaalka elektarooniga hawada ayaa si fudud u cidhiidhiyay nidaamyada ka hortagga dagaalada ee dalka Ruushka. Faa'iidada kale ee Turkigu ka helay ciidamada Ruushku qalabeeyay waxay ahayd xaqiiqada in qaar badan oo ka mid ah difaacooda cirka ay leeyihiin aragtiyo raadaaro xadidan. Nidaamyada difaaca hawada ee ciidamada aerospace ee Ruushku waxay leeyihiin cutubyo badan. Nidaamka xogta iyo dagaalka ee C4I ee taliska xakamaynta isgaarsiinta iyo kombiyuutarada iyo sirdoonka si loo helo sawir dhab ah hawada si loo ogaado khataraha. Laakiin xarumaha noocan oo kale ah ee isku dhafka casriga ah kuma guuleysan inay ka hortagaan diyaaradaha yaryar ee droniska ee dalka Turkiga. Ugu dambeyntii, xogaheenan dunidana, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Cavusoglu ayaa bilaabay booqasho taariikhi ah oo uu ku tagayo Brussels si uu u xoojiyo xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub kadib markii uu aad u xumaaday xiriirka Midowga Yurub iyo Turkiga 2020. Booqashada 3 maalmood oo ahayd mid bilaabatay Arbacadii, diblomaasiyiinta ugu sarreeya Turkigu waxay la kulmeen Joseph Borrell iyo madaxweynaha golaha Midowga Yurub, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Turkiga uu kala hadlay mas'uuliyiinta ugu sarreeya Midowga Yurub in dib loo ambaqaado wadahadal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo khilaafka weyn ee ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Midowga Yurub. Midowga Yurub waxa uu leeyahay dano istaraatiiji ah oo ku saabsan horumarinta iskaashiga ee faa'iidada leh, isagoo ilaalinaya in xiriirka Turkiga uu sii jiro.